ilmuhu wuxuu la imaadaa xanaaq, wuxuu la imaadaa ooyin fara badan, wuxuu sameeyaa mararka qaar dhulka inuu isku tuuro, mararka qaar wuxuu sameeyaa ilmihii hooyadii inuu cunto ka qaadanin ama cunto badan inuu qaato oo aad u cajilo ama cunto dhan uu qaadanin oo meesha tabardaro iyo daciifnimo ilmihii laga dareemo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكسو نقد وناكسن كسو دوادا كنالك ومركلي ولاشين آمنة. maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan isticmaalka caruurta ee mobilka iyo dhibaatada ay ku leeyihiin marka ay ku sugan yihiin waxbarashada iyo xaaladda koriinshaha. waxaan aragnaa hooyooyin badan markii aan ku jirno waxbarashada, hooyooyin badan oo ka cabanaya ilmahoodu inay wax baranin, sababtan ay leeyihiin ayaga nafsadooda. sababtoo ah ilmuhu markii mobil loo dhiibo ama mobil lagu mashquuliyo, waxaan aragnaa in maskaxdoodii ay buuxsamayso mimrigoodii, waxbarashadoona ay tahay mid aad iyo aad u hooseyso. dhanka waxbarashada khaasatan qur-aanka iyo farbarka higaada, markii aan joogno madarasooyinka waxaan aad ugu dhibanahay ilmihii yaraa inuu fahmo, inuu wax qoro, inuu ihtimaam iyo firfircooni iyo xamaasad u yeesho casharkii. sababtana waxay tahay anagii oo gurigii markaan joognay telefoon, aabaad iyo tv ku mashquulinay. hooyo walba waxaa loogu baahan yahay inay ku baraarugto markii ay rabto caruurteeda ay wax bartaan, mustaqbalkoodana ay ka fikirto. waxbarashadu waa muhiim, waxbarashadu waxaan rabnaa ilmaheeni inay mustaqbalkooda aan ka fikirno. inta badan hooyooyinkeena guriga joogo waxay ku fikiraan inay mobilka iskaga mashquuliyaan, iskaga aamusiyaan. ilmuhu markuu dhasho ilaa 5 sano waxaa mamnuuc wax telefoon inaan loo dhiibin, hooyadun inay isticmaalin oo isticmaalkeeda xataa haddii isticmaalaysa inay yareyso. waxaa inta badan la dhahaa 30 daqiiqo ayaa la rabaa 5 sano ilaa 12 sano inuu isticmaalo markuu ku jiro waxbarashada. waxaa inta badan muhiim ah markii ilmuhu koriinshaha uu ku jiro in teleefankaadu uu xadidan yahay, aan isticmaalkiisana uu xadidan yahay, aan ku isticmaalin meel agtiisa ama marka aad la joogto. ilmuhu markaa waxay u baahan yihiin xanaano, in lala joogo, in la fahmo, in lala sheekaysto, wax uu ku ciyaaran loo keeno. ama waxbarashada markii aan ku jirno waxaa muhiim ah ilmuhu in laga fikiro caafimaadkooda. sidoo kale waxaa muhiim ah in aan fahano ilmaheena dabeecadooda, inaan u sameyno jadwal. hooyadu baraarugsan ama hooyadu dhiirigelinta mar walba wax ay u tarto oo wax badan ka faa'iida muuqaaladeena waxay sameystaan jadwaladaasna waxaa muhiim ah inaan ku dhaqano. ilmuhu waa inaad u sameysaa jadwal subaxdii ilaa habeenkii markuu kasoo laabanayo dhammaan. waxaa kaloo muhiim ah ilmuhu inaad ka xadidid oo aad ka yareysid, hal mar kama wada joojin kartid, laakiin waa inaad ka xadida oo ka yareysaa oo isticmaalkiisa 30 daqiiqo aan korjoogtid oo aad la isticmaashid oo aad la muraaqabaysid oo la fiirisid. sidaas darteed waxaa meesha yaraanaya inuu wax ka baxsan mowduucyadii wax uu ka faa'iidi lahaa uu daawado. marka waxaan inta badan ku dhibanahay madarasada markaa joogno ilmuhu inay wax fahmaan, inay cashirkoodii fahmaan. sababtana waxaa keenaysa mimrigii oo buuxdo, maskaxdii oo buuxdo, ilmihii oo caajisan, ilmihii waxbarashadiisa aad u hooseyso, ilmihii waxba aan fahmeynin oo maskaxdiisu ay xirxiran tahay. taasina waxaa sababayso waqtiga badan oo isticmaalka mobilkiisa uu isticmaalay iyo hurdada oo ku yar. inta badan ilmuhu waxay sameeyaan markay isticmaalayaan, waxay shaashada telefoonka ay u dhawaadaan ayagoo raba inay waxaas ay fahmaan. ilmuhu markay yar yihiin ay koriinshaha ku jiraan waxaa kasoo daaha hadalka. ilmuhu waxaa kasoo daaha inuu sameeyo luuqadii, inuu si fiican u fahmo oo luuqadii uu ku hadlo. fahamkooda ayaa yaraada. ilmuhu wuxuu la imaadaa xanaaq, wuxuu la imaadaa ooyin fara badan, wuxuu sameeyaa mararka qaar dhulka inuu isku tuuro, mararka qaar wuxuu sameeyaa ilmihii hooyadii inuu cunto ka qaadanin ama cunto badan inuu qaato oo aad u cajilo ama cunto dhan uu qaadanin oo meesha tabardaro iyo daciifnimo ilmihii laga dareemo. markii waxbarashada lagu jiro waxaa imaanaya daciifid araga ah, inuu ilmihii aragii daciifo, inuu indhihii ka qalalaan oo indho qalalan ee noqdaan ilmihii. sidoo kale waxaa imaan karta ilmihii inuu sameeyo iskuday ah inuu wax walba oo diido. ilmihii wuxuu inta badan waqti la qaatay telefoonka, wuxuu kaa diidaya inaad wax u diratid ama aad adeegsatid ama aad caawinaad inaad ka dalbatid. sababtoo ah waqtigiisa intuu ugu badneed wuxuu geliyay telefoonka, wuxuu isku dayaa dhaqamadii telefoonka inuu hirgeliyo oo adiga kugu baraatikeeyo. waxaa kale oo dhibaatada weyn laga helo waxay tahay caqligooda iyo fahamkooda ayaa hoosooy. garaadkoodu ma ahan mid aad iyo aad u fiican oo u wanaagsan oo wax kala sooci kara oo wax isku dayi kara oo homework ka shaqeyn kara. caqligooda ayaa wuxuu noqonaya mid hooseeya.
caafimaadkii dhankii araga iyo dhankii kurunshaha saameynta iyadoo xaggeedii ay tahay haddana waxbarashadii ayay ku hooseeyaan mar walba. waxaa kaloo imaan karta hurdadii oo ku yaraato ilmihii hurdo la-aan ee ku dhacdo taleefonkii xilligii uu jiifanayo ama tvgii ama ibaadkii loo dhiibo saacado ka hor inuu yani uu wax badan isticmaalay hurdadii markuu sariirtii seexa la dhahana inuu xanaaq sameeyo amba ooyin uu la imaado kadibna waxaa dhacaysa inuunan hurdinba hurdadii xili dambe u hurdo subaxdii aroor horena uunan toosin asigoo caajisan madrasadii u imaado. arintaasi macalimiin badan way ku dhiban yihiin inta badanna waxay sheegaan in macalimiintu hooyooyinku ay taleefoonada ka xadidaan. taleefoonada in la xadido waa arin muhiima. markaa ka xadidaysidne waa inaad sameysaa bedel, waa inaad taleefoonkii hadaad ka xadiday waa inaad banaankii u wadaa, waa inaad ilmihii haduu guriguu joogay oo xiliga waxbarashada uunan gaarin aad u keenta alaab uu ku ciyaaro oo waqti badan aad la qaadatid, aad la sheekeysatid, buwaag oo wax ka aqriyo, wax aqriskii inuu barto. taleefoonka iyo tvgii aadbaadkaba dhan wanaagsan iyo dhan xunba way leeyihiin, laakiin batatan ama ugu dambeynba waxaa muhiima inaad ka taqalusid oo aad ka dhaaftid oo aad ka joojisid. sababtana waxay tahay caafimaadka caruurtaada ayaa muhiim ah, mustaqbalka caruurtaadana waa muhiim. waxaa kaloo jirto waxbarashadu marka lagu jiro waxaa muhiima inuu ilmahaada aad ka fikirtid waxbarashada mustaqbalkiisa, caafimaadkiisa, caqligiisa iyo garaadkiisaba. waxaa rajeynaa muuqaalka inaa wax badan ka faa'iideen. hooyooyinka waxaan kula talin lahaa inay joojiyaan isticmaalka moobeelka nafsadooda iyo caruurtoodaba, sababtoo ah moobeelku wuxuu leeyahay dhan wanaagsan aad kaga isticmaali karto markay jiiftaan oo kale ama waqtiyada ay fasaxa madrasada ay ku jiraan inaad adiga waqti kooban oo wax aad ka faa'iideysid aad ka isticmaashid. markay guri kula joogaan waxaa muhiim ilmaha waqti inaad la qaadatid, inaad banaanka u bixisid, inaad qalab fara badan oo ku ciyaaro guriga u keentid, inaad la sheekeysid, inaad dhaqamadii bartid, inaad siirada nabigii bartid sallallahu alayhi wasallam, ina wax badan oo diinteena ku saabsan bartid. sida darteed muuqaalkeena oo dheeraada maanta halkan ayaan ku joojinaynaa. waxaa aad muhiim u ah inaan ka wada fikirno mustaqbalka caruurteena oo aan ku dadaalno oo aan dhexda xirano oo aan ka fikirno waxbarashada caruurteena iyo meesha waxaan qaban lahayn iyo jadwalkeena u sameyn lahayn, wax walba aan ka fikir lahayn. application waxbarasho ayaa jiro, insha Allah muuqaalka kale ayaan kusoo gudbi doona haduu Ilaahay yiraaho. muuqaalkeena meel dheer gaarsiiya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.